balse xasan sheekh maxamuud wuxuu gadaal ka ogaaday in ay jirto Kenya in ay kala laabatay lacagtii ay u ballan qaaday maadaama dalkii uu galayo doorasho. fiidiyowga oo bartiisa Facebook ah oo soo dhigay madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud wuxuu ahay fiidiyowgani 5 sano ka hor ayuu ahay. waa 2016 bishii September 16keedii ayay ahayd fiidiyowgani. cadeynteedan hoos ayaan ku soo dhigi doonaa balfiiri. laakiinse waxaan rabnaa inaan isla eegno madaxweyne xasan sheekh maxamuud fiidiyowgani wuxuu kaga hadlayo ayaan rabnaa inaan fiirino. bal hal mar ila dhageyso waxbaan ku cadeey doonaa kuna muuji doonaa. halkani bal aan aragno. warqadda isfahamka hore u jirtay badanaa dadka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay qabaan warqadda isfahamka ama waxa MOU-ga loo yaqaano in aanu ahayn wax oo sharciyan ku qabanayo. warqadaasi waxa markii heshiiska la saxay berigii dawladda Kenya waxay gelisay waxa oo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xafiiskeeda waxa loo yaqaan International Treaty Registry oo lagu diiwaan geliyo shuruucda ama heshiisyada caalamka. heshiis caalami ah oo la diiwaan geliyay ayay ahayd annaga markaa u nimaday. okay wuxuu dhahay MOU waan ku fasirayaa waxa laga gaabiyay MOU micnaheedana waan ku sheegi doonaa. wuxuu markaani daboolayaa wax la yiraahdo MOU inaysan dhibaato dalka Soomaaliya ku ahayn balse isla bilooyin kadib 2017 bishii February labadeeda wuxuu si cad u sheegayaa in xasan sheekh maxamuud raggan heshiiska ay soo galeen oo ahay heshiis ay badoodii ku saxiixeen waliba ay ku gateen maantana ay damacsan yihiin in xilka mar kale ay u tartamaan waliba xil ay ka doonayaan Soomaaliya. okay waan ku fasirayaa MOU wax laga wado balse waxaad ila aragtaa fiidiyowgan oo ku hadlayo xasan sheekh maxamuud oo ku sheegayo in uu jiro heshiiskii raggii ay soo galeen inuu ahay wax ay badooda ku gateen maantana ay doonayaan in xil ay dalka Soomaaliya ay ka qabtaan. bal aan isla aragno fiidiyowgii oo musharaxnimadiisa oo ku tartamay hadalkii oo ku hadlay. ma laba xasan sheekh maxamuud ayaa jirto mise hal xasan sheekh maxamuud ayaa jiro? maxay ay tahay wuxuu dadka uu ka gadayo? asaga miyaa isgadayo mise fashilkiisa ayuu banaanka keenay? bal aan aragno fiidiyowgan kaleeto. kala u soo hor istaagay in aan dhammaan ummadda Soomaaliyeed u soo jeediyo hambalyo guusha maanta Soomaaliya u soo hoyatay ee weli aan dhameystirnayn laakiin bilowgeedu bilow fiican u yahay ee ku saabsan maxkamadda cadaaladda caalamka oo maanta dacwadii Soomaaliya badeeda ku saabsaneeday xukuntay dacwadaas inay qaadi karto biyo Soomaaliya inay yihiin laakiin si khalad ah oo laba nooc oo khalad isugu jirto. dadka mas'uuliyiinta dalkan ka ahaa beriga laba nooc oo khalad ayay galeen. kuwa khalad waxay galeen inay negligent afka qalad waxa lagu yiraahdo ay sameeyeen oo ay sahalsadeen maxalka ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ee malaayiin sano ka hor ay lahayd malaayiin sano ka soo socotana ay lahaan doonto inay dayalsadeen oo aanay siinin muhiimadii ay lahayd. kuwa kalena waxa lagu tuhmi karaa inay dana gaar awgeed ay u bixiyeen dhulkaas oo ay ahayd wax qiimaha dhulkaas uu leeyahay noo gooy karaa inaanay jirin. biyaha Soomaaliya iskale weligeed inta dunida Ilaahay abuuray ay Soomaaliya soo lahayd haddana inta adduunyada jiritaanka dunida ka dhiman Soomaaliya way sii lahaan doontaa. dawladda waxa meeshaas kaaga cad marka heshiisyada raggan ay soo galeen inuu ahay wax ay badii ay ku saxiixdeen inay ku gateen inuu ahay ayuu sheegayaa. fiidiyowgii ka horeyna wuxuu ku sheegay inaysan wax dhibaato u keenin ay tahay wax u diiwaan gashan caalamka oo dhan. waxaan rabaa marka inaan markaan ku fasiro waa maxay
MOU maxaana laga soo gaabiyey MOU waxaa laga soo gaabiyey waa Memorandum of Understanding. micnaheedu waxay tahay ereyga ugu horeeya waa memorandum. micnaheedu waxaa laga wadaa waa heshiis qoraal ah lagu galay ama lagu galo ganacsi. Google-ka tag soona fiiri ereyga inta ayaan kuu soo saari doonaahe bal geliyo soo arag micnihiisana arag. waxaa la galay is-afahan ama isfahan xagga iyo ganacsi ayaa la galay. xasan sheekh maxamuud xilligaani oo ku dhawaaqayo oo hadalkani oo ku sheegayo waxaa jirtay fiidiyowga ka horeey marka uu ka hadlayo waxaa socotay wada hadal hoose u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya. xasan sheekh maxamuud waxaa loo ballan qaaday lacag in la sii doono haddii uu ka soo celiyo maxkamadda is-afahna lagu dhameeyo heshiiskii ka horeey ragga ee galeen lagu socdo ayay ahayd. balse xasan sheekh maxamuud wuxuu gadaal ka ogaaday in ay jirto Kenya in ay kala laabatay lacagtii ay u ballan qaaday maadaama dalkii uu galayo doorasho. Kenya waxay ku xisaabtamaysay rag ay ayada wadato inay keeni doonto. xasan sheekh maxamuud wuxuu gadaal ka ogaaday in lacagtani ay tahay mid mala awaal ah dusha laga salaaxay laakiinse aana loo soo wadin. xasan sheekh maxamuud wuxuu markaasi ogaaday in gadaal laga tooganayo isla markaasi oo lihiisa doorashadu wuxuu ku soo qayb galay in raggii ka horeeyay heshiiska ay soo galeen inuu ahay wax qaldan balse noo sheegay MOU inuu yahay wax saxan balse maanta noo sheegay inay tahay wax qaldan. taasi waxaan u deegaynaa Soomaalida. fadlan waxaa ka codsanaya inaad sii gaarsiiso fiidiyowgani aad u share gareyso fadhigiisana aad ugu geysaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida uu ogaado in laba xasan sheekh maxamuud ma jirto mise hal xasan sheekh maxamuud ayaa jiro. afkiisa ayuuna ka cadeeyay in raggii ka horeeyay waxa ay soo galeen inay ahayd wax qaldan. anigu ma sheegin, anigu ma cadeynayo, anigu qofna kuma cadeynayo, balse xasan sheekh maxamuud ayaa noo cadeeyay raggii ka horeeyay waxa ay soo galeen isla asagii ayaa sheegayo leh oo dhahayo bal arag wal video wuxuu ku sheegayo oo dhahayo raggii ayaa sud noo soo xirtay bal arag. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waxaan nasiib darro ah kuwa aan ka hadlayay ee na dayacay shalay si غير mas'uulnimo ah u sahladay badeen inay baxdo ama dana gaar ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan. qofka Soomaaliya oo caqli leh oo dadnimo ay ku jirtaa waa garan karaa waxa ka dhalan kara dadka noocaas mas'uuliyadooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan. dadka Soomaaliyeed ha foojignaadaan indhooda kor nin nacayb maaha nin jeclaysi maaha laakiin waxaan leenahay dadka mas'uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminayo ha laga fiirsado gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego malafyadoodii hore dib ha loo eego meesha ay ka yimideen waxa ay soo mareen iyo mas'uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib ha loo eego. aniga ma oran ani haddaan kuu sheegayaa hore ayaa loo sheegay hore ayaana looga soo hadlay aniga ma sheegin 2017 ayuu xasan sheekh maxamuud afkiisa ku cadeeyay inay jiraan raggii badii gatay inay suud soo xiranayaan. maantana waxaana laga gadayaa isla raggii ayaa la leeyahay waxay ka dambeeyaan badii. abaal waxaa nagu leh ninkii u soo halgamay badeena Soomaaliya, ninkii loo dhibaateeyay lagu shabadeeyay qabyaaladiistii lagu shabadeeyay in uu dalka gadanayo ayaa abaal nagu leh waana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. meel kasta ayaa laga galay dagaal ayaa lagu kiciyay dagaal qabiil ayaa lagu kiciyay meel kasta ayaa laga galay in lagu fashiliyo arinkani. waxaana la rabay in loo muujiyo qaramada midoobay in Soomaaliya inaysan ka jirin wax amni ah iyo wax kala dambeyn ah sidoo kale inaysan ka jirin wax dawlad sax ah balse Soomaaliya
waa dal maskiin ah ilaahay garabkooda taagan yahay